eedaysano ninkaasi wuxuu wax ku qoray website wuxuuna sheegay in ay xeebaha galbeed ka soo degeen ONLF qaabkaasuu horta u xidhnaayeen eedaysanuhu jirdilkan iyo waxaan la sheegayaa horta wax jira maaha xeer baa jira maxaabiista lagu dhaqo xeerkaasoo ah in marka maxbuuska la tirinayo wixii uu qalab haysto hadday mobil tahay iyo haddii kalaba iyo hadday hanti lacageed tahay in laga qaado la dhigo saldhigga askartu waxay ogaatay ama ilaaladii xabsigu waxay ogaadeen in mobil maxaabiista mid ka mid uu haysto way baadheen maxaabiistii oo dhan dibadda u saareen waxa mobilkii laga helay gogashiisa sidaa darteed markii la helay wuu mormay askartiibuu la dagaalamay waxbuu ku yar dhuftay iyaguna waxoogaa dhirbaaxyo waxaan noocaas ayay ku dhufteen laakiin jirdilkan la sheegaya wax jira maaha taliya maxamuud yuusuf raran waxaan weydiinay haddii ay dhakhaatiirtu caddeeyaan in wariyaha la dilay bal waxaa tallaabo ah ee ay ka qaadi doonaan ciidanka falkaasi u geystay wariyaha wuxuuna ku jawaabay taliya maxamuud yuusuf raran jirdil horta maba dhici karto maxaabiista qaabka loola dhaqmaa maaha in la waxyeeleeyo laakiin marmar waxa dhacda nin maxbuusa oo isagoo askarta ku aflagaadooda oo la dagaalama laakiin wax dhaca maahaba in jirdil iyo kas loogu dilo nin maxbuus oo ku xidhan saldhigga qaraabadiisu waxay ku dacwoonaysaa inuu ninkani ahaa cameraman oo wax usoo duubi jiray laakiinse website-ka aanu isagu waxba gelin horta investigationka waxaa gacanta ku haya qoladan laanta baadhista dembiyada siday dhidahaysa saldhiggu muu haynin xagga baadhista sidaa awgeed wax iga xog badan ciddii markaa gacanta ku haystay kiiska oo ah CID